Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Doobiya Media barteena YouTube-ka iyo Doobiya barta Facebook-ga. Waxyaabaha aan idiin wadno wararka dalkeena hooyo waxyaabahaasi waxaa ka mid ah. Marka waxaan ka codsaynaa dawladda Soomaaliya oo hadee bira madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeeyo taliyaha guutada Ibraahim Sheekh Maxamuud waxaan ka codsaynaa oo taliyaha xoogga ah waxaan ka codsaynaa horta geeridu waa xaq waana la dhimaha ananka rag badan oo hadii la yiraahdo hilgamaaya oo dawladdu soo hilgamay oo dhintaan oo aasnay haddana wuxuu ku jira shaqada dawladdu ku jiray oo qaranka u shaqeeyay hadduu dhintana geeridu xaq waa laakiin ninkii waa dhinta waa nool yahay waa dhaawac saddexdaas mid qoyska taliya Shaah Macabe oo dawladda Soomaaliya ka dalbaday in ay meel ku sheegaan wiilkooda taliyaha guutada 25aad oo muddo 7 nolol iyo geeri midna aysan ku heenin. Warbixintaasina waa idin diyaarinay sidoo kalena waxaa qayb ka ah nin kasta oo idin kamida ciidanka askarta kamida waxaan dalacsiinay min hal darajo ayaan dalacsiiko sareeye guuto Ibraahim Sheekh Maxamuud oo maanta cutubyo ka tirsan geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed kula hadlayay deegaanka Daarunimca ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle isla markaasina halkaasi ku guddoonsiiyay deeq xoolo ah ee dadka deegaanka iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle ugu talagalay dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Warbixintaasina qayb ayay ka tahay. Sidoo kalena waxaa qayb ka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa saaki halkaasi gaaray sabay ama u xil saaray halkaasi guddi warbixin dhameystiran ka keena qaabka dhismahaasi u socday cidda dhismahaasi waday injineerada ahaa quality control ka halkaasi quality-ga dhismaha sida uu ahaa isla markiina waxa ay guddigaasi ka soo warbixiyeen injineeradii halkaasi dhisay waxaana hadda xiran oo gacanta lagu hayaa oo saldhigga degmada Howlwadaag ku xiran 4 injineer oo labada guri ee dumistu bilaabay. maamulka gobolka Banaadirna waxay sheegeen inay xabsiga dhigeen injineeradii dhisay ee dhismayaashii suuqa Bakaaraha ee habeenkii xalay ahay soo dumay dadna ay ku geeriyoodeen. Warbixintaasina qayb ayay ka tahay. markii muhiimaddu ma haytay shirka Mail Airlines anti oo amniga gudaha eedlan ku warqaba la xaqiijiyay Mail Airlines Mail Airlines walaay oo lagu dhawo koron lagu dhawo walaay maamulka Koonfur Galbeedna waxay maanta dhanka amniga ee maamulkaasi Bakool ku yeesheen kulan ay ka soo qayb galeen saraakiisha ammaanka ee qaybaha kala duwan ee maamulkaasi iyo sidoo kalena kuwa kale ee ADMIS ee Itoobiya halkaasi ku sugan. Warbixinaan ka diyaarinay ma aha maalintii dhibco siyaasadeed laga raadin lahaa arrimo amni ah oo argagixisada lagula jihaadayo. Xildhibaan Mahdi Guuleedna oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in aysan wanaagsaneyn in laga dhaxraadiyo dagaalka lagu jiro khawaarijta lagu ciribtirayo arrimo siyaasadeed. Warbixin aan ka diyaarinay waa idin soo gudbin doonaa. u diyaar garoobana qodobadaasi oo dhameystiran ka daawanayseen barahan kuleyna social media sida barteena YouTube-ka Doobiya Media iyo sidoo kale barta kale Facebook-ka ee Doobiya. Mukhtaar Xasan Tifo Shaah Macabe taliyaha guutada 25aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed waa ninkan idin muuqdo isla markaasina deegaanka Coosweyne ee gobolkaasi Galgaduud ee maamulkaasi Galmudug sabtidii ayaa dagaal xoogan kooxda gobolkeeda u dhacay arxanaawiyaasha asiga iyo geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka weerar ku soo qaadeen jab ayaana loo geystay kooxda gobolkeeda sii dhacay argagixisada. warar badan ayaa soo baxay ku aadanaa taliya Shaah Macabe isla markaasina
in aanan lagu helin nolol iyo geeri. arrintaasi oo sii xoogeysanaysa ayaa waxaa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah eheladiisa oo lagu magacaabo cabdicasiis ismaan, islamarkaasina uu sheegay in muddo toddobaad ah ay aamusanaayeen islamarkaasina aysan heenin wiilkooda nolol iyo geeri. wuxuuna ka codsaday dowladda Soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ay ka soo waramaan arrintaasi ku aadan wiilkooda inuu geeriyooday iyo inuu kale inuu dhaawac qabo. wallaahi niyow meel uu raad ka dhigay annaka gacan kuma hayno 7 biryaan adkaysaynay 7 biryaan nolol iyo geeri midnaba kuma hayno ilaa saacan waxaan hayno male. marka waxaan ka codsaynaa dowladda Soomaaliya oo hadii bira madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeeyo taliyaha guutada Ibraahim Sheekh Maxamuud waxaan ka codsaynaa oo taliyaha xoogga ah waxaan ka codsaynaa horta geeridu waa xaq waana la dhimaha. ananka rag badan oo hadii la yiraahdo hilgamaaya oo dawladdu soo hilgamay oo dhintaan oo aan aasnay haddana wuxuu ku jira shaqada dawladdu ku jiray oo qaranka u shaqeeyay hadduu dhintana geeridu xaq waa laakiin ninkii waa dhinta waa nool yahay waa dhaawac saddexdaas haday midnaba nala dhihi lahay waa fiicnaa lahayd. marka inta waa weysana mana jirto ilaa iminka si cad ee dowladda Soomaaliya kaga hadashay iyo sidoo kalena in ay jiraan in uu bad qabo cid xaqiijo karto. waxaana xusid mudan in Shaah Macabe uu ahaa mid ka dhex muuqday saraakiisha ciidamada oo lagu xasuustay xilligii dagaalka gobolka Shabeellaha Dhexe si weyn kooxda khawaarijta oo loo wiiqay iyo sidoo kalena xilligii badbaado qaran. nin kasta oo idin kamida ciidanka askarta kamida waxaan dalacsiinay min hal darajo ayaan dalacsiiko. deegaanka Daaruneemca oo tobiye ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha aan loo dikarin kooxda gobolkeeda dhacay argagixisada cashar ugu dhigay ciribtirka ay ku sameynayaan ayaa maanta deegaanka Daaruneemca ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle waxaa kula hadlay sareeyo guuto Jeneraal Ibraahim Sheekh Maxamuud taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana uu halkaasi ugu bashaariyay in ciidamada Soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay halkaan ku sugan mid waliba la dilaacsiiyay min hal darajo. wuxuuna sidoo kale halkaasi ugu soo jeediyay hadal dardaaran ah. aad maqlaysaan saad isu maqashaan iyo ciidanku aad isu maqasheen waxaan leenahay marka aad u mahadsantihiin. waxaan guud ahaan la qabnaa culumadii iyo gudoomiyaha maxkamadda iyo wasiirka guubaabada iyo mataqaanaa inta hadallada ay soo jeediyeen ayaan la qabnaa. waxaan intaas ii dheer oo rabaa inaan ku daro marka ugu horreysa waxaad tihiin ciidanka keliya ee iyagoo iswata si iswadasho ah difaac ugu jiraa tihiin maanta marka la fiirsho. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir shir jira ay qabtay maanta ayaa wuxuu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay soo xireen ilaa 4 injineer kadib markii habeenkii xalay ahaa guri iyo ku yaala suuqa Bakaaraha degmada Howlwadaag ee soo dumay isla markaasina dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray hanti iyo burbureed. dabaqa kooban ilaa 8 biyaano ayaana soo dumay wuxuuna ku dumay mid kale oo dhismo ku socda 4 biyaanaha kaasi oo sii ciirsaday kuna kordhumay guri kale oo ku hoos yeelo dad shacab degnaayeen waxaana ku geeriyootay haweeney hooyaha iyo gabar ay dhashay. afhayeenka ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha duqa oo guddi u saaray arrintaasi isla markaasina injineeradii dhisay iyo sidoo kalena quality-ga dhismaha ay baaritaan ku sameeyeen isla markaasina hadda la soo qabtay 4 injineer ee degmada Howlwadaagna ay ku xiran yihiin maxkamadna la keeni doono. ana hadda xiran oo gacanta lagu hayaa oo saldhigga degmada Howlwadaag ku xiran 4 injineer oo labada guri ee dumistu bilaabay iyagu dhisaya ama gacanta ku haya ama horeba ugu dhisay.
wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed ayaana shir gudoomiyey kulanka toddobaadlaha ee degmada xudur ee maamulkaasi koonfur galbeed ee gobolkaasi bakool ee lagu xoojinayay amniga islamarkaasina ay goobjoog ay ahaayeen mas-uuliyiin gobolka iyo sidoo kale heer degmo taliyayaasha booliiska iyo sidoo kalena ciidamada koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa kale ee admis taliyahooda ee halkaasi ku sugan qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaasi laisku wadaarsaday xogta ku aadan sidii loo xaqiijin lahay amniga iyo sidoo kale dadka deegaankaasi kusoo dhex dhuumanaya argagixisada looga qaban lahaa kulanka markuu soo gabagaboobo ayaa warbaahinta hadalkan la wadaagay amniga ee dowladda koonfur galbeed yaa shir gudoomiyay armooy horta bulanku hadal jaray dhinaca amniga iyo waxyaabaha kor iyo update iyo challenges ka jira iyo dhaliilooyinka oo walaay dhinaca ammaanka ku jira la wadaagay waana wasli wadaagay safayraninka dhamaaday ugu dambeyntiina mahdi guuleed oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in aan waqtigaani munaasab ahayn in siyaasad laga dhex raadiyo halganka ee kooxda gobolkeedu dhacay ee al-shabaab lagu ciribtirayo ma aha maalintii dhibco siyaasadeed laga raadin lahaa arrimo amni ah oo argagixisada lagula jihaadayo nabadgelyadu waa muftaaxa nolosha haddaanay nabadgelya jirin oonu amni jirin iskuul lama aadayo nolol lama raadsanayo waa tahay intaasina ayaan kusoo gabagabeynaynaa qodobadii dhowrka ahayd ee doobiyo media barta youtube-ka iyo mdoobiyo barta kale facebook ka daawanitaniyo mar kale sidaas iyo nabad